Waxaan ka hadlaynaa macdanaha ku qarsoon dhulka hoostiisa. Horey waxaan uga soo hadalnay dhulka ciiddiisu jaallaha tahay. Haddana waxaan ka hadli doonaa dhulka ciiddiisu ay gaduudka tahay. Sababaha aan dhulka ciidahooda iyo cimilooyinkooda uga hadlayno, 3 shay ayaan hadafkeena koowaad u soo qaadanaa. Kow, waxaanu ogeysiis ku siinaa bulshada Soomaaliyeed dhammaanteed. Sidoo kale waxaa jira dad ardaydeena ah oo iska diiwaangeliyay barnaamijkeena oo xogtaan mararka qaar inay wax ka faa'iidaan loogu talagalo si wixii si dheeriya loogu xalliyo oo ay goboligyo u sii helaan. Waxaa sidoo kale u jira ogaallo dadka noo soo socda aan ku sii ogeysiino. Muhiimadda waxaan marka ka hadlayaa dhulka ayaan gudbayaa. Dhulka cimiladiisu tahay ciiddiisu gaduudka ay tahay. Maadooyinka laga helo waa ilaa 6 maado. 6daa maadana halka ayay kaaga muuqdaan. Kow, waxyaalaha uu leeyahay waxaa ka mid ah maadooyin dhagax gaduud ama madow ah. Dhagaxdaas oo tilmaan u ah in uu markaas macdana ku jiraan. Bir buu u badan yahay. Maadooyinka birta ah oo birqabatada ku dhaga ayaa aad ugu badan. Irontu waa lambarka koowaad oo birtii aan ka hadalnay. Dahabka ayaa jira. Nickel macdan la yiraahdo ayaa iyaduna ku badan. Waxaa marka macdanahan aan halkan ku sharaxay ay ka tarjumayaan macdanaha ugu badan ee dhulkan laga heli karo waa magnesium, waa iron, waa gold, waa cobalt, waa bauxite iyo nickel. Macdanaha marka la isu geeyo waxay ka tarjumayaan bir, dahab iyo kiimikooyin casri ah. Markii inta la baaro, la shiido, la habeeyo, laga shaqaysiiyo, mid walbaaba wuxuu joogaa qiimo gooni ah, wuxuuna leeyahay faa'iido gooni ah, wuxuuna leeyahay suuq gooni ah, dhulkana tirsi gooni ah ayuu kaga jiraa. Taasoo fududayn karta in qofku ka heli karo il dhaqaale, shirkaddii gadataana ay horumar badan waddanka iyo caalamka qaaradaha ku soo kordhin karto. Dowladdii waddankeeda wax soo saarkan ka baxana uu u noqon karo suuq dhaqaale oo u soo kordhay oo horumarsan. Sida aan ognahayba innaga macdanaha dhulkeena kulli waa la dhaafaa hadda. Macdanta keliya la isticmaalaana waa goldiga ama dahabka. Waxaana keliya kalifaya waddankeenu male sharciyad adag oo macdaneed oo waddanka wada gaadhay, laakiin wasaaradda macdanta way jirtaa. Sidoo kale qodobka labeeyo caqabada inoo ku ah waxaa jira injineerada maamulaya sektarada macdanta. Injineero ma ahan xirfado badan u wada leh. Waa injineero hal wax ama 2 wax kaliya yaqaana. Caqabada kale ee inaga in haysata ee macdanta inaan horumar ka gaarno diidaysa waxaa weeye investment iyo maalgashadayaal badan iyo suuqyo uma aynu samayn. Markaan intaa isku eegno waxaa inoo sii dheer caqabada dhulkeena khayraadkiisa inaan maalgashano aqoon badan oo hadeertan jaamacadaha ah iyo horumaro badan oo aad macdanta awoodda u saaraya waddankeena kama jiraan. Taasina waa caqabad kale. Sidoo kale ganacsatadeenu qalabkii macdanta lagu iibinayay lagaga shaqaynayay oo dhammaystiran ma ay keenin. Laakiin hadda waxaan anigu diyaariyay online-ka inaan uga dalbo qof kasta wuxuu u rabo oo macdanta qalabkeeda ah, hadday daawo tahay iyo hadday qalab tahay. Intaa markaan ka sii gudbo, qalabkaas oo aan meel walba laga heli karin wuxuu ku noqday dadka caqabad. Waxyaalaha caqabada dadkeena Soomaaliyeed ku ah oo ina hortaagan oo inaan xalka u raadino u baahan. Suuq baynu ariga u samaynay, geela suuq baan u samaynay, looda suuq baan u samaynay, qudaaraadkana suuqyay lahaayeen. Suuqyadan hadda lama samayn. Xilligii Soomaaliya dowladda Soomaaliya horaad samaysay kadibna wixii baa la daba joogay. Laakiin macdantu suuq ma lahayn.
hadda inaguna suuq ma aynu samayn iyo xiriir iyo sidii aynu caalamka u geyn lahayn ayadoo ay jiraan marmar shay yar oo aan tira badnayn oo inta qolo qaadato ay si yar oo xatooya ay caalamka u geeyaan taasina wax weyn oo tayo badan oo hadeertan wadan iyo saameyn ku yeelan kara maaha waxyaalaha kale ee inaga ina hortaagan oo aan rabno inaanu kaga ogaano macdanteena iyo kheyraadkeena waxaa kamid ah dhulka sahamin kuma samayno ma maalgashano sidoo kale saamiyo macdanta iyo baaristeeda iyo sheerar shirkado soo bandhigay oo curiyayaal Soomaaliyeed lama helin waa wax loo baahan yahay waxyaalaha kale ee loo baahan yahay oo hadeertan caqabada ina ku ah waxaa kamid ah inagu mar walba waxa aynu ku mashquulsanahay inta badan qabyaalad cadiifad iyo kala qoqobnaan deegaan taasina waa caqabad culus oo ina ku ah wax aan nolosheena hadda iyo mideena dambe wax tar u lahayn laakiin anigu waxaan ku talin lahaa in dhulka si fiican la isu dhex maro wax soo saarka iyo hal abuurkana laga fikiro waxyaalaha kale ee ina haysta waxaa kamid ah qofka Soomaaliga ahi waxaan aqoon uma leh kadibna wuxuu iska soo jarayaa dhulkan kheyraad iyo faa'iido badan ma leh haddana waaga dambe markii la baaro haddana wuu shaqo tagayaa marka waa curiyayaasheenu aad bay u yaryihiin marka waxaa loo baahan yahay dad wax curiyayaal ah caqabadaas iyaduna waa caqabad taagan qofkuna markuu dhaqaale sameeyo waa markuu caqabad cusub xalliyo hadda anigu waxaan dadka Soomaaliyeed ka xalliyay inaan u baari karo macdanta ayaga oo sawir ah aniga oo la xiriiray shirkadaha ajnabiga raadinayana mustaqbalka inaan anigu heerka online-ka shakhsiyan inaan wax ugu baaro rajaynaya haddii aan maalgelinteeda iyo systemkeedii mustaqbalka gaaro waxaan laakiin hadda gaaray inaan wax soo qolqolo oo bal wax u baaro dadka dhagax iyo waxyaalo aan u iibiyay dad Soomaaliyeed way jiraan waxyaalo badan oo aan iib u waayay oo aan suuq u waayay oo dad aan u baaray ama ay la soo xiriireen walaalo Soomaaliyeed way jiraan laakiin waan ka cudur daaranayaa inaan wali helin xalkeeni qaar kamid oo badan qaarkii aan xalka u helayna aad baad u mahadsantihiin nasiibkiina ku noqotay waxaan inta idinku darayaa buuggii macdanta koowaad waan haynaa cidii aan hore u iibsan oo qiimihiisuna aad u jaban yahay waxaan kaloo haynaa baarista macdanta oo hore aan u wadnay oo sawirada ah aad baan idin soo dhaweynayaa waxaan idinka codsanayaa barnaamijka inaad subscribe garaysaan like garaysaan kusoo biirtaan wax walbana aad commentiga igula soo wadaagtaan sidoo kale lambarka hoos buu yaallaa aad ila soo xiriirtaan aniga farxad bay ii noqonaysaa waxaan dareemayaa dad badan oo Soomaaliyeed inay barnaamijkan xiiseynayaan oo uu yahay barnaamij loo baahnaa inaan ku sii jiro xogo badan oo intaan ka badan idin soo bandhigo ayaan awood u yeelanayaa haddaad saa ila shaqaysaan waxaa xogtan idin soo tibinayay anigoo Cabdullaahi Saciid Sheekh Xasan mar walbana waan idin soo tibin doonaa mahadsanid soo dhawaada waxaan idinka ilaaway inay jirto isdiiwaangelinta ardayda